soo dhawaada barnaamijka idaacada caalamiga ah ee Gari Global Network Radio. Waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa war naxdin leh oo naga soo gaaraya qabalaha lahay oo ka tirsan degmada Mooyaale ee gobolka Daawo. Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya magaalada lahay ee xarunta gobolka Dawa, gudoomiyaha degmada Mooyaale ayaa wuxuu amray in la burburiyo qabuuro ku yaala bartamaha magaalada lahay. Sida xogta aan ku helayno, burburka qabuuraha ayaa lagu eedeeyay in la doonayay in la sameeyo wado cusub oo soo gelisa. Si kastaba ha ahaatee, qorshaha guud ee magaalada lahay ayaa la soo gabagabeeyay dhowr sano ka hor, mana jirto weji labaad oo la fasaxay oo ah qorshaha guud oo la amray ama la filayo dhowaan. Sidoo kale ma jirto baahi wado ah oo magaalada ka jirta, sidaas darteed gudoomiyaha degmada Mooyaale Mudane Cabdinuur iyo xubnaha hoos yimaada ayaa lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay qabuuraha ka dhigaan dhul la degan yahay si ay lacag ama dhaqaale uga helaan. Haddaba xubno ka tirsan qoyska marxuumka oo caraysan ayaa aad uga carooday, waxayna dalbanayaan in jawaab laga bixiyo, kuwii falka geystayna ay la kulmaan cawaaqibka ka dhalan kara falkooda.